gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada baarlamaanka galmudug iyo boqolaal ruux oo kamid ah bulshada qaybaheeda kala duwan ee reer Gaalkacyo ayaa xalay magaalada Gaalkacyo uga qayb galay munaasabad lagu maamuusay 14 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii dowlad goboleedka galmudug ee ku beegneed 14 Agoosto sanadii 2006 munaasabadan oo sidoo kale ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed ayaa waxa uu horeyn ka hadlay Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac oo kamid ahaa asaasayaashii galmudug waxa uu ka sheekeeyay dadaalkii loo galay dhismaha galmudug. Hambalyaan leeyahay meel kasta oo ay reer galmudug joogaan dal iyo dibadba hawshii la soo maray ambaqaad wanaagsan iyo tallaabay hadda leedahay inaan u jeednaa meeshay u socotaan arki karaynaa oo qiyaasi karaynaa waliba meeshaan ka bilownay baa noo muuqata laakiin waxaan jecelnahay muuqashada ay noo muuqataa inaan aad uga fogaano oo ay noo muuqan weydo oo ay noo muuqato meesha aan u soconno. dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug Axmed Xasan Cali ayaa isna sheegay in mirihii dadaalkii loo galay dhismaha galmudug maanta la guranayo. anoo ka faa'iideysanayo fursadan waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo Professor Shirwac iyo adeer Hayl oo waqtigoodii ku lumiyay dhisidda halkan qofka bini'aadankana waxaa la ammaanaa intuu nool yahay taariikhda ay xusi doonto insha Allah maantana waxaan halkan u taagannahay waa dadaalkii amba waqtigii aad geliseen meesha tan. gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Puntland Saahid Maxamed Cali oo isna madasha ka hadlay ayaa wax lagu farxa ku tilmaamay ka qaybgalka taas oo xusay inay ku timid nabadda iyo amniga ka jira magaalada Gaalkacyo. inagoo hal ah mataanana hal magaalana waa wax Ilaahay looga mahadiyo waa waxaan rajaynaynaa inay sii socdaan waa waxaan rajaynaynaa in dadka kaga hormarno hadii Allah wada la idmo waan ku faraxsanahay inay kala soo qayb galno sanad guuradii 14aad ee markii la aasaasay dowladda galmudug. munaasabadan intii ay socotay ay ka hadleen mas'uuliyiin kala duwan oo ay kamid ahayd siyaasiyada Soomaaliyeed ee cashaga la diiriyay ayaa waxa gunaanadkii ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal. waxaan hambalyo iyo duco u diraynaa intii ka soo shaqaysay iyo intii waqti ku bixisay iyo intii naf ku bixisay iyo intii maal ku bixisay waxaan rabaa faatixada inaa ila akhrisaan. Allah u naxariistee hogaamiyihii ugu horeeyay ee ka mira dhaliyay ee asoo u dadaalayo ku dhintay Ilaahay ha u naxariistee Ambassador Kiimika Allah ka abaal mariyo intii uu qabtay dalkiisa iyo dadkiisa intii uu ka badbaadiyay intii uu na soo gaarsiiyay wanaagan aan caaw u dabaaldegayno.